nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii ay cabsida ka baxday kadib waxa uu ku soo noqday godkiisii qaarul xiraa xilligaasina wax waxyi ah oo aanan ka ahayn aayadihii suuratul iqra kuma aysan soo degin isaga oo sidaa u yaaban nebiga ayaa mar uu ka soo noqday godka ayaa waxa uu fiiriyay xagga iyo samada waxaaba u soo muuqday malagii hadda ka hor godkii qaarul xiraa ugu yimid isaga oo samada ayaa dhulka inta u dhaxaysa kursi ku fadhiya nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee argagax xoog badan ayuu malagaasi araggiisii uu ka soo qaaday si degdeg ahna waxa uu u yimid gurigiisii markaas ayaa xaaskiisii khadiijo waxa uu ku dhahay iduuduub wax weyn ayaan soo arkay khadiijo sidii hore oo kale way duuduubtay markaas ayaa nebiga waxaa ku soo degay aayadihii labaad ee suuratu mudaththir waxaana lagu dhahay nebiga kan isduuduubayow istaag oo dadka u dig rabbigaagana weynay dhankaagana nadiifso sanamka iyo waxyaabaha alla sokadii dadkay caabudaanna ka fogow waxyigani kadib nebiga waxaa la saaray xil weyn oo dacwo gaarsiina balse manhajkani cusub ee diinta sidee ayuu qaarad dhan uu ugu faafin karaa broblem aad u weyn ayay nebiga ku noqotay waxaana u soo baxday nebiga oo nala qumanaatay in mabda'ani cusub ee waxyiga in dadka dhexdoodii si guud inuusan u faafinin waxa uuna go'aansaday saaxiibadiisii dadka ugu dhow dadkuu isleeyahay way ku dhegaysanayaan iyo dadka wanaagsan ee uu yaqaano oo dhan intuu u taga ayaa nebiga ama inta uu martiqaado ayaa mabda'ani diintuu u sheegi jiray waxaana sidaa nebiga ku rumeeyey dhowr qofood waxaana ugu horay ee nebiga rumeeyey waa xaaskiisii khadiija waxaa ku soo xigay zayd binu xaarith oo addoon la xuray oo nebiga la noolaa ahaa cali ibn abi taalib oo aad u yaraa oo nebiga la noolaa ayaa isagana ku soo xigsaday dadka kale ee bannaankana abibakar ayaa ugu horeeyey dadkii ugu horey ee nebiga sidaa ku rumeeyena culimmadu way isku khilaafeen sida ay u kala horeeyaan qaar ayaa waxa ay rumaysan yihiin in abibakar uu ahaa qofkii ugu horey ee nebiga rumeeyey sida ugu wanaagsan ee culimmada qaarkoodna ay u kala qaadqaadaan waa in dadkani qof walba kategori gaar ah in la geliyo tusaale dhanka dumarka haweeneedii ugu horaysay waxa ay ahayd khadiija dhanka iyo dadka addoonka ahna zayd binu xaarith oo addoon khadiijo ay lahaan jirtay ahaa oo dib dambe nebiga ay siisay nebigana uu xuray ayaa noqday qofkii ugu horey ee nebiga rumeeyey dhankii ciyaalka yaryarka ahna cali ibn abi taalib ayaa ugu horay ee nebiga rumeeyey dhanka iyo saaxiibaduna qofkii ugu horay waa abibakar dadkani islaamay dhexdooda abubakar un mooye inta kale nebi maxamed dad la noolaan jir ayay ahaayeen abubakar ayaa waxa uu noqday qofkii ugu firfircoonaa ee ugu nashaadka fiicnaa sababtoo ah abubakar dadkani marka loo fiiriyay xilligaas waxa uu ahaa nin oday ah oo weyn oo dadka oo dhan ay xishmeeyaan nin la dhagaysto oo ganacsato ah dadkuna tale ay ugu imaadaan haddana sidoo kale qof aqoon u lahaa diimihii hore ayuu abubakar ahaa nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee warkani markuu u sheegayba abubakar kuma uusan dhibtoon inuu rumeeyo sababtoo ah aqoontiisii ayaa ku caawinaysay inuu si degdeg ah u fahmo in nebi maxamed rasuul xaq ah inuu yahay abibakar mabda'ani markii uu ku qancay waxa uu bilaabay isaguna in dadka mabda'ani diinta inuu ugu yeero cuthmaan binu cafaan ayaa ka mid ah dadkii abibakar uu soo islaamiyey zubayr binu cawaam cabdiraxmaan binu cawf sacad bin abi waqaas dalxa binu cubaydillah iyo rag kale oo badan ayuu abibakar gacantiisii uu ku soo islaamiyey guruubkani ugu horay ee sida qarsoodiga ah diinta ku qaadatayna waxa uu qur'aanka kariimku u yaqaanaa as-saabiquuna al-awaluun waana dadkii ugu fadliga badnaa dunida sababtoo ah waxay islaameen xilli qofna uusan islaamin dhanka iyo bulshada marka loo fiiriyana sideediiba dadku ugu horay ee manhaj cusub xilli dadka oo dhan col ay leeyihiin manhajkaasi taageera oo manhajkaa garab istaaga mustaqbalkaasi manhajkaasi haddii uu sax noqdo waxaa dadkaasi loo iclaamiyaa haliyeeyo ku dhiiraday xilli halis ay jirto in manhajkani uu taagnaado sidaasi darteeda dadkani saabiquuna al-awaluun ee ugu horay islaamka sababtaasi ay dadka adduunka kale oo dhan ugu fadliga dheeraadeen qof walba oo dadkani ka mid ahna saaxiibadiisii kale ama xaaskiisii ayuu isagana si qarsoodi ah uga dhaadhicin jiray diinta islaamka
culays badan oo nebiga saarnaa ayaa xilligaa ka kala furmay. qof waliba halka uu taagan yahay ayuu si gaar ah dacwada uga bilaabay, laakiin shardiga waxa uu ahaa in si qarsoodi ah barnaamijkani loo wado, sababtoo ah waxaa laga baqanayay qabaa'iladani Quraysheed. mabda' diineedna waa meelaha ugu saamaynta badan ee bulshada si degdeg ah ay uga falceliso. waa sida adiga oo maanta waddan muslim ah dadka ku dhex faafinayo diin kirishtaan ah oo dadka aysan rumaysnayn. sida ay u halis badan tahay sidaas oo kale ayay dadkanina caqabado badan ula kulmayeen. hadafkuna waxa uu ahaa in dacwada sidani qarsoodiga dadka dhexdoodii ay ugu faafto. qof walboo islaamana si tartiibah qof uu ku kalsoon yahay un mooye qof kale inuusan ugu yeerin. waxaana la doonaya marka sidani qarsoodiga dadka ay ku bataan, awoodna ay yeeshtaan in dadka oo dhan marka diinta si guud in loogu yeero. ciddii isku daydaa intaa kadib in xoog ay adeegsatana in la iska celiyo. waxaase cajiib ahayd xilligaasin carabtu ay ahaayeen dad qabaa'ilo kala duwan oo hal meel ku wada nool. dadkani ugu hore ee nebiga rumeeyeyna waxay isugu jireen dad ka kala socday qabaa'ilada kala duwan ee magaalada dega, mid miskiina, mid addoona, mid ka mid ah dadka bulshada ugu sansareeya, mid ganacsada. intoodiiba waxa ay ku jireen dadkani sida qarsoodiga diinta u qaatay. waxa ayna samaysteen xilligaa meel u gaar ah oo ay ku wada kulmaan. guriga Arqam binul Arqam oo isagana ka mid ah dadkii xilligaa diinta qaatay ayay ku heshiyeen inay isku wada imaadaan. nebi maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee aayadaha lagu soo dejiyena gurigani dhexdiisii ayuu dadka ku bari jiray. dadkani sida qarsoodiga ku islaamayeen marka ay bateen carabta dhexdoodii waxaa bilowday shaki. dadka qaarkoodse waxa ay ku sheekaysanayeen barnaamij cusub oo diini ah in maxamed uu wado. dadkii ugu waaweynaa carabta xilligaas iyaga oo ka warqaba ahmiyad sida weyn ma aysan siin jirin. wax meel dheer gaari kara uma aysan arki jirin, sababtoo ah nebi maxamed ka hor waxaa jiri jiray dad nebinimo sheegta oo dhowr sano kadib marka mashruucoodii uu socon waay iska dhaafa. nebiguse dadkaasi oo kale ayay u malayn jireen. in sidani carabta ay u fakaraanna waxa ay sabab u noqotay in muslimiin badan iyaga oo si xor ah in dacwadani ay qaataan. xilligani diinta dadka sida qarsoodiga ay ku islaamayeen wixii axkaama ee nebiga la faro waxay ahaayeen salaadaha. muslimiintii ugu horeeyay waxa uu nebiga baray sida loo tukado. culimadu waxay isku khilaafeen salaadaha nebiga xilligani uu tukan jiray ka hor inta aanan 5 salaadood lagu soo dejinin ka hor ma kuwo waajib ah ayay ahaayeen mise nebiga sida ayuu isaga tukan jiray. qaar ayaa waxa ay qabaan culimada ka mid ah waxay ahaayeen salaado waajib ah. xilligani dacwada qarsoodiga ay ahayd maalintii oo dhan dadka waxa ay tukan jireen 2 jeer, subaxii oo 2 rakaco ah iyo maqribkii oo 2 rakaco ah. waxaa la soo wariyay nebiga nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee inta uu Jibriil u yimid ayaa waxa uu baray qaabka loo weys qaato, kadibna salaadaha ayuu u sheegay. xilliyada salaadaha sida masaajidka oo kale dadkani waxa ay ku tukan jireen guriga Arqam binul Arqam, laakiin dadka aanan ka soo gaarinna meelo aanan laga arkayn oo keli ay ku yihiin ayay keligoodii ku tukan jireen. mar ayaa Abi Taalib waxa uu arkay nebi maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee iyo jameeco kale oo si qarsoodi ah meel ugu tukanaysa. Abi Taalib inta uu la yaabay ayuu si wanaagsan u daawaday qaabkay u tukanayaan. marka ay dhammeeyeen salaada ayuu Abi Taalib la hadlay, waxa uuna weydiiyey waxa ay sameeyeen. nebi maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee waxa uu u sheegay in waxyi diini ah oo xag alle uga yimid in salaadu ay tahay. Abi Taalib isaga oo yaaban marka uu arkay dadkani isku xirxiran in arintoodii ciyaar inaysan ahayn waxa uu ku dhahay iska sii wata oo halkiinii ku sugnaada. sanado kadib magaalada Makka waxaa ka bilowday in lagu arko kacdoon dad badan oo akhlaaqdooda aadka u wanaagsan tahay oo soo jiidasho fiicanna leh oo dhexdooduna isdhagaysta dadka kalena caawiya. waagii hore qofka midka walaalkiisa ama midka qabiilkiisa oo keli ayaa wax uu arki jiray xigaalkiisa, laakiin mabda'ani cusub ee diinta waxa uu dadka uu farayaa walaaltinimadaba in diinta ay tahay. dadka oo dhan aad ayay u soo jiiteen jameecadani muslimiinta ee Maka ka soo baxday. xilligani waa xilli 3 sano dacwada ay qarsaneed. nebi maxamed nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee intaa kadib waxaa ku soo degtay aayad sabab u noqotay in marxaladani qarsoodiga uu ka baxo. wa andir cashiirataka al-aqrabiin.
dadka kuugu dhowdhow ee qaraabada diinta gaarsii. Tanina waa asluubta bulshada manhaj cusub loogu soo gudbiyo, sababtoo ah maanta qof walba ee fikrad ama barnaamij cusub dadka la dhex imaada ama kacdoon sameeya dadku waxa ay bilowgii ay ka fiiriyaan qofkani ciyaalkiisa ama ehelkiisii haddii fikirkani uu wada ama mashruuciisii haddii ay ku dhex jiraan ama in kale. Cagsigeeda, haddii aysan ku dhex jirin kalsoonida dadka ay ku qabaan qofka iyo fikirkiisaba aad ayay u soo yaraataa. Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee aayadani kadib waxa uu kulan isugu yeeray dadka eheladiisii ahaa, qaraabadiisii, adeeradiisii, ciyaalka ay dhaleen. Xilliganina suuqa waxaa ku jirtay hadalhaynta nebiga iyo mashruucani diinta uu la yimid, laakiin sidaa uma uusan muuqan. dadkani kulanka isugu imaaday waxaa ku jira Abiilahab oo banaanada wanka Quraysh iyo diinta Muxamed ka sheekaysanaysa soo maqlay. waxa uuna u arkayay Abiilahab kulankani jaanis uu nebiga uu kula hadli karo, weliba iyada oo qabiilka oo dhan ay wada dhegaysanayaan. Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee kulankani markii uu soo qabanqaabiyey inta uusan hadlinba Abiilahab ayaa iscelin waayay. markaas ayuu hadalka furfurtay, waxa uuna dhahay, ii dhegaysa Muxamedow, dadka halkani fadhiya ee aad wada aragto oo dhan waa adeeradaadii, waa eedayaashaadii, dhammaan ehelkaadii oo dhan ayaa halkani ku kulansan. sida aad rabtid u hadal waynu ku dhegaysan doonaa, laakiin barnaamijkani aad wada ee ciyaalnimada ah meel fog inaga gey. haddii aad barnaamijkaasi fadhigan aad isugu keen yeertay ii dhegayso reer Cabdalmudalib Muxamedow, taban uma ay hayaan Quraysh oo dhan inay iska wada celiyaan. inaguse diyaar uma nihin dagaal inaad inagu kiciso, anaguna dagaalka aan kugu garab istaagno. barnaamijkani aa la timid ee diinta qof tolka ka mid ah oo weligiisii waxaan oo kale oo sharta la yimid ma jiro. waxaase mudan hadda ayay bilow tahay in dadka aan kaa qabanay Muxamed inta ay meelaha carab ay kugu dili lahaayeen. marka Abiilahab sidaasi fooshu xun ugu hadlay, muudkii halkaasi ka jira oo dhan iyo motivationkii nebiga ayuu qalday. Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee kulankaasi oo dhan wixii uu rabay kama uusan sheegin, sababtoo ah muudkii oo dhan Abiilahab ayaa qalday. jabi canaan iyo qaylo ah ayuu la soo galay. waxa uuna go'aansaday nebiga in maalin kale uu isugu yeero, isagana uu ugu hor hadlo inta uusan qof kala hadlin. maalintaa nebiga inta uu ehelkiisii dhex istaaga ayaa ugu horayn waxa uu u mahadceliyey Alle, kadibna waxa uu ku dhahay, allaha nafteedii gacantiisii ay ku jirto ayaan ku dhaaranayaa, anigu waxaan ahay rasuulkii Alle ee caalamka oo dhan loo soo diray. jannadu waa mid xaq ah, naartuna waa mid xaq ah oo inaga dambaysa. waad dhimanaysaan sida aad habeenkii u hurdaan oo kale, waa la ina soo saari doonaa, kadibna xisaab ayaa inaga dambayn doontaa. arrintani ayaana doonayaa inaad igu garab istaagtaan. Abitaalib nebiga adeerkiisii ayaa hadal ka qabsaday, waxa uuna dhahay, nasteexadaadii Muxamedow waan maqalnay, dacwadani aad wadidna u foolxun. Muxamed hadda ayuu yar yahay, saamayntiisuna hadda ayay yar tahay. waa inaan inaga kareerkiisii ahaan aan qabano, haddii kale carabta ayaa banaanada wiilkani ku dili doonta, inaguse ceeb iyo fadeexa ayay inoo noqon doontaa. waa inaanan u horkicin arrimahani diinta ee uu ka hadlayo. Abitaalib waa uu diiday waxani Abiilahab uu ku hadlay, ka leexo, dhammaanteeni ayaa garabkiisii taagan ayuu ku dhahay. Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee intaa kadib si muuqata oo dadka oo dhan ay wada arkayaan ayuu dacwadiisii u bilaabay. waxaana soo wajihi doona dhibaatooyin badan oo dadka deegaanka iyo kaaba qabiilada Quraysh uga imaan doonta. Nebi Maxamed nabadgeli naxariis korkiisa ahaatee si ay uga takhalusaan risaaladiisii albaab walba, haddii ay noqoto weerar nafsi ah, haddii ay noqoto bulshada dhexdeedii tekniik si ay faafitaanka dacwada u soo kala yareeyaan, manipulation in ay ku sameeyaan, wax walba haddii ay noqoto in nebiga dad dilaa ah inay u soo wakiishadaan, albaab walba ay u mareen si ay nebiga isaga qaban lahaayeen. waa inoo qaybta 7 iyo muuqaalka xiga haddii uu Eebbe raali ka noqdo.